الله أكبر وايد سلامي aad baan idiin soo dhaweynayaa runtii maanta waxay noo tahay farxad dheeraada reer buur haddaan magacaabana dhibaato ma ahan maanta beesha murursade oo hubkaan wadata oo diyaara oo cadowga dhulkooda ka soo kiciyay u socota inaan hor taaganahay maanta oo aan la dardaarmo وفرحات عمر عاد بالغ فرح صراحة. أنت أنا أوجد بين وحربا اللي بانك فدرالك اللي بان هذا هير استيت أو صاحب بضي أو بدن أو داب شيرين حقيقة داب شيرين فرحية سراكيشة أيضا كورته oo aad arkaysaan dhammaan halkaa wada socota dhammaantiin aad baan idin salaamahayaa taliyaha qaybta 27 dhammaantiin waa idin salaamahayaa runtii waxaan filahayaa abaabulkaanu waa abaabul muddo dheer beeshu ay ku taamaysay waxaa muuqda hubka iyo ciidanka marka la arko siyaasiyiintii beesha iyo ganacsatadii iyo mas'uuliyiintii oo dhan inay u dhantahay soo saas maahan xooggoodii runtii waxaad ku soo abbaaranteen xilli fiican oo shabaab uu dhabarka jeediyay oo laga adkaaday shabaab horta waa magac qurxoon aan ka daynaba maba astaahilaan shabaab waa dhallinyaro soo maahan maba astaahilaan khawaarijta argagixisada ama arxalnawayaasha ah xilli ay dhabarka jeediyeen baad ku soo abbaaranteen xilli la idinkaga horreeyey oo saaxiibbada reer hiiraan ay al-shabaab bikra jabiyeen oo ay bareen dadka waxa al-shabaab yihiin baad adiguna timaadeen aad baan idinkugu soo dhawaynahayaa waxaa ii muuqda ragga halkan fadhiya guusha ay gaarahayaan haddii ilaahay yidhaahda aad bay iigu muuqataa sida xaqiiqada ah sababtoo ah meesha ay dagaalka ka bilaabahayaan iyo magacaan ceelbuur haddaad horta maqashaan waa magaalo taariikhi gobollada dhexe magaalada ugu taariikhayn ugu facweyn weeye waana magaalada ugu nacfiga badan xagga dhaqaalaha waa magaalada la odhan kara waa ugu degmada looga waa ugu boobileeshi badan tahay ama anugu gobol baan maanta leeyahay degmo ma lihi goor dugsi laga furo iskuul uu ku laga furo carruur wax lagu barayaa garanahaya isbitaal yaa garanahaya ka furan oo dadka lagu daaweeyo jaamacada maanta degmooyinkii meel bay marahayaan jaamacaday dhisteena jaamacad miyaa ka furan ma ganacsi iyo business baa ka furan ma wadooyin la isu maro oo la isku kala goosho oo ganacsiga iyo adduunka iyo safarada isu maraan baa ku yaalla maanta halkaas waxaa ka muuqda reer ceelbuur inay ka hareen degmooyinkii kaleeto ma tahay mise maahan ceelbuur waxay ka hartay ayadoo ugu fac weyn taariikhda gobollada dhexe maanta ayada ugu fac hoosaysa miyaysan ahayn intaasoo nolola haddaysan ka abuurayn ayadaa maanta ugu hoosaysa degmooyinkii ugu dambeeyey oo Soomaaliya magacowday waxaa ka mid ahaa maxaas maanta maxaas baa ka magac dheer miyaysan ahayn cidda la rabo marka inay u gurmato oo cadawga ka xorayso oo nolosha ku soo celiso oo jaamacada ka furto oo isbitaal ka furto oo wadooyin u samaysa yihiin adinka weeye iyo Soomaali oo dhan oo idin kaalmaynaysa waxaan rabaa ereyga ah halgankan maanta bilowday oo shabaab iyo Soomaali u bilowday waa halgan Soomaaliyeed yaan la qabiilayn waa halgan Soomaali oo dhan baa iska leh ma taha dagaaladii soo bilowday dagaalkii Sayid Maxamed Cabdilla Xasan هاي ما صدق madaxweynena waa noo yimid aad baan ugu mahadcelinayaa dagaalkii Sayid Maxamed Cabdilla Xasan oo gaalo la diriray libintii iyo guushiisa Soomaali iskama lahan
soomaali baa iska leh kii axmed gurey soomaali baa iska leh kii 77kii soomaali baa iska leh SYL soomaali baa iska leh dagaalka maanta socdaana dagaaladaasuu la mid yahay soomaali baa iska leh magac ka sokeeya waa isku abaabulaynaa reer hebel iyo degmo ceelbuur iyo waa isku abaabulaynaa laakiin guusha soomaali baa leh waxa ku wada jiraana waa soomaali oo dhan waxaa soo hara 5 nin oo isku dhalatay hadday Soomaaliya guul istiraatiijiyada u keento guusha Soomaali baa leh bal hadalka u fiirsada 5 isla dhalatay hadday guul dhaliso guul caalamku ogol yahay inay guul tahay waa guul Soomaaliyeed hanugu weynaato erayga Soomaali sababtoo ah way hadii lagu kala qaybiyo oo Soomaali la kala qaybiyo meel wax ku aad oo wax tari kartaa waa yartaa ma jirtaba waxa wax lagu qabsanayo waa Soomaalinimada marka inkastoo degmada ceelbuur ama gobolka ceelbuur deegaankeedii dadkaanu yahay haddana dagaalka aad ku jirtaan waa dagaal Soomaaliyeed waxa lagu soo socdaa meel hadda aan magacaabayn oo aan taatikadu u ogolayn waxaan isku xirmahay dagaalka ka socda Hiiraan gobolada dhexe galgaduud iyo shabeellada dhexe ilaa Bay iyo Bakool inaan isku xiraan rabnaa oo dagaal isku xiran uu noqdo isku xiran uu noqdo dhammaan is wada saameyn isku leh meel walba xabad inay uga qiiqdaan rabnaa